بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدوميها برلمانك فدرالك مدن محمد شيخ عثمان جواري قدومي كحجين ذا لمان حلمان ذا شرفت له برلمانك فدرالك جمهورية الصومالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هوري إيغا أوغولادا إنان إذن لو ذاقو tacsiyadii xildhibaanadii geeriyooday ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya mudane xildhibaan Allah u naxariisto Xuseen Cabdisalaam Umar Islaaw Maxamed Warsame Maxamed iyo Xasan Maxamed Cali oo ah xildhibaanadii ugu dambeeyay ee geeriyooday ilaa iyo is-araggeennii ka horreeyay is-aragga maanta ah. waxaan eebbe uga baryaynaa in uu jannadii firdowsa ka waraabiyo dhammaanteenna uu samri iimaan naga wada siiyo. mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf weyn ii ah inaan mar kale idin hor imaado si aan idinku soo gudbiyo shaqsiga aan u magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda soo socota ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si aad uga gudataan waajibaadkiina dastuuriga ah oo aad kalsooni u siisaan si uu u gudagalo waajibaadkiisa uu golo wasiir iyo barnaamij xukuumad u soo diyaariyo mar kale na idin hor keeno si aad adigu kalsoonidiina ay mar kale ansixintiina aad u siisaan. sida aad la wada socotaan mudanayaal iyo marwooyin 2 Diseembar 2013 go'aankii aad gaarteen kadib waxaa qasab noqotay in aan la tashiyo sameeyo kadibna aan gaaro go'aanka ah inaan soo magacaabo Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xukuumadda cusub. haddaba waxaa qasab ah sida uu dastuurku nafarayo in baarlamaanka sharafta leh ee federaalka Soomaaliya ay kalsooni siiyaan si uu u helo sharciyadii rasmiga ahayd isla markaana uu u gudagalo howlihiisa muhiimka ah. mudanayaal iyo marwooyin marka hore waxaan jeclaan lahaa inaan u wada mahad celiyo dhammaan shakhsiyaadkii soo dalbaday xilka ra'iisul wasaarenimada ee soo gaarsiiyey dalabkooda xafiiskayga oo dhammaantood muujiyey xilkasnimo iyo wadan jacayl iyo karti iyo dheeri ay u qabaan iyo hamuun in ay dalka Soomaaliya ka badbaadiyaan ka saaraana duruufaha gaarka uu ku jiro. dadkaas oo dhammaantood gaaraya ilaa 70 qof oo markii aan dib u eegnay dalabyadoodii iyo CV-yadoodii aan ka soo saarnay 20 qofood. 20kaas qof oo aan anigu si gaar ah ula fariistay waraysina aan ula yeeshay si aan muxuu ahay u ogaado qofka ugu habboon. farxad weyn bay ii gelisay sida shakhsiyaadkaas aan waraystay ay dhammaantood u wada muujiyeen sida ay diyaarka ugu yihiin inay dalka u adeegaan. waraysiyadaas kadib waxaan gartay oo aan go'aan ku gaaray in Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed inuu yahay shakhsiga aniga iyo baarlamaanka iyo hay'adaha dastuuriga kala shaqayn kara sidii aan u xaqiijin lahayn himilooyinka waaweyn ee shacabka Soomaaliyeed uu hiigsanayo oo ay ka mid tahay in 2016 aan dalkeena gaarsiino doorashooyin xor ah oo madax bannaan. mudanayaal iyo marwooyin waxaan ku kalsoonahay in Cabdiweli uu sii dardargelin karo dhammaan horumarkii ballaarnaa ee aan sanadkii la soo dhaafay dalkeena iyo dowladeennuba ay gaartay isla markaana uu la iman doono barnaamijka xukuumadda oo faahfaahsan oo u kala qeexan qaybo ay ka mid yihiin kow sida dalka loo gaarsiin karo doorashooyin xor ah sanadka 2016 labo amniga iyo xasiloonida dalka iyo nabadeynta sida loo horumarin karayo saddex dib u habeynta dastuurka
dhaqangelinta federaalka asxaabta siyaasadeed iyo dhammaan howlaha muhiimka ah ee uu dastuurku nafarayo 4 dhaqangelinta new dealka iyo dabagalka ballanqaadyadii beesha caalamka ah ee ku caddaa new dealka iyo kuwii ka sii horreeyey sida shirka London 5 dhaqangelinta go'aanadii shirweynayaashii qaran ee waxbarashada caafimaadka garsoorka xagjirnimada iyo aragtida fog ee 2016 6 dib u heshiisiinta iyo isgaarista maamulada dalka iyo dhaqangelinta dowladda federaalka dhaqangelinta iyo is-afgaradka dowladda federaalka ay la gaartay maamulada gobolada iyo dadka Soomaaliyeed ee ku kala nool qaybaha kala duwan ee jamhuuriyadda 7 xoojinta xiriirka caalamiga ah hagaajinta maamulka maaliyadda iyo dhammaan howlaha muhiimka u ah ee hor yaallo sida soo celinta kalsoonida beesha caalamka ay ku qabto maamulkeena iyo habkeena maaliyadeed sidaas daraaddeed waxaan si xushmad iyo sharaf leh idinkaga codsanayaa inaad ra'iisul wasaaraha cusub aan soo magacaabay Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed aad siisaan codkiina kalsoonida ah si uu u helo sharciyad isla markaana uu u soo dhiso golo wasiiro oo fulin doona qorshayaasha iyo barnaamijyada xukuumadda oo ra'iisul wasaaruhu idiin soo bandhigi doono si aad waajibkiina dastuuriga mar kale uga gudataan xildhibaanada sharafta leh shacabka Soomaaliyeed waxay naga sugayaan in isbeddelkaani uu noqdo mid u horseeda shacabka iyo dalka horumar dhan walba ah si aan u wada gaarno aragtida aan hiigsanayna ee ah inaan helno Soomaaliya nabad ah kana xasiloon dhanka amniga dhanka dhaqaalaha iyo dhanka siyaasadda intaba waxaan hiigsanaynaa in sanadka 2016 ay dhacaan doorashooyin oo dowladda dambe ay noqoto mid shacabka Soomaaliyeed uu soo doortay mudanayaal iyo marwooyin mar kale aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa sida aad sanadkii la soo dhaafay baarlamaan ahaan aad waajibkiinii u gudateen waxaan idin rajaynayaa in sanadka 2014 uu noqdo mid sii dardargeliya howlaha muhiimka ah ee nawada hor yaalla dhammaanteen mudanayaal iyo marwooyin ugu dambeyntii waxaan idinka rajaynayaa inaad codsigayga tixgelin doontaan oo aad ansixin doontaan ra'iisul wasaaraha cusub oo uu helo si uu u helo sharciyadda isla markaana u guto waajibka aan dhammaanteen ka rajaynayno inuu si sahlan u fushan doono mar kale dhammaan waan idin mahad celinayaa waxaan idinku bogaadinayaa howlaha muhiimka ah ee aad soo qabateen iyo guulaha aad gaarteen iyo dhiiranaanta iyo sal adayga kuwa kale ee culus ee idin hor yaalla aad ugu diyaar garowdeen aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh